meesha marka joog saaxib yaal meesha waxa laga yaabaa in adiga ka tahay everyone macnaha waxa way ya friend request ku soo diri kara السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب السوداء ملبو دفا درود جوجتان channel ka daawana sawaan oo kadib magacaygu Cabdi Nuux Xuseen Facebook sanada ay isticmaalaysaa waxa laga yaabaa 5 sano 6 sano 7 sano isticmaalaysaa laakiin 500 followers iyo 1000 followers aad bidhaafilaaday waxa kale macquul ah dhowr Facebook inaad macnaha aad ugu tagtay follow laan darteed laakiin wali misweydiisay inay ka xiran yihiin sitin aad u baahan tahay inaad furto Facebook si lamid ah sida ababka kale wuxuu leeyahay sitina qaar oo hadii aysan ku furnayn wax muhiimada uusan siinayn isticmaalkaaga sida daraadid inta aadan Facebook ka guurin oo marba midka kale aadan u guurin waa inaad furtaa sitinka aan hadda ku sheegi doono si aad u hesho Facebook followers fara badan aadna Facebookaas uu ku noqdo Facebook cimriga inta ka dhimanaa isticmaasho soo dhaw saaxiibayaal magacaygu waa Cabdi Nuux Xuseen channelkeena waxaan ku soo gudbinaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay cilatirka Facebooka muuqaal sameynta sidoo kale qaabka kala duwan ee online lacag looga sameeyo marka sidaa daraadeed hadii ay tahay markaa koowaad fadlan channelka subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan oo like taada waxa way meel badan bay muuqaal gaarsiinaysaa marka hayga loo saaxiib Facebook saa markaa u soo gashid ee Facebookaaga sana u yimaadid waxay isweydiinaysaa Facebookan inta soo sanaa isticmaalay laakiin maxan followers u heli lahaa laakiin wali isma weydiin inay jiri karaan sitino ka xiran oo waxa way aad u baahantay inaad furto mar walba hadda waxaan ku tusayaa sitin hadii macnaha aad qaabka u bedesho waxa way ku noqonaya Facebook muhiima oo saaxiibadaada in badan ay soo raacaan saaxiibaal xaggan ay imaanaysaa xagga marka ay imaadid hoos ba u soo soconaysaa waxa imaanaysaa meeshan ku qoran tahay sitin and privacy mar labaad ayaad ku celinaysaa setting mobilkii appka isticmaalayso kulli in badan way ku xiran tahay sida markaan u soo socdo on xaggaasa u soo socdo meeshan waxa ka raadinaysaa meel ay ku qoran tahay how people find and contact you ayaad ka raadinaysaa waatanaasa u jeedid how people find and contact you meesha marka joog saaxiib yaal meesha waxa laga yaabaa in adiga ka tahay everyone macnaha waxa way ya friend request ku soo diri kara adiga marka friend request in lagu soo diro uma baahnid ee waxaad u baahan tahay in Facebookaaga la soo follow gareey aad u baahan tahay sida daraadid meeshan everyone qof kasta friend request ii soo diri kara ay kugu qoran tahay waxaad ka dhigtaa kaliya friends of friends saaxiibada friendska la kaliya ayaa ii soo diri kara marka waxay ka caawinaysaa meeshan in macnaha qof kasto Facebookaaga ku cusub uu arko in lagu soo follow gareyn kara kaliya oo uusan ku soo codsan karin marka friends of friend ayaad xagga ka dhigaysaa meelahan kale saa u jeed saaxiib people with your email address ya email ka arki kara xaga number ku deynaysaa sidoo kale people with your phone number ya phone number ka arki karana meeshan waxa ku deynaysaa nan oo uma baahnid cidna inay Facebookaaga iyo waxyaabaha aad qabato iyo waxyaabaha aad ka shaqeyso inay aragto uma baahnid meeshan saaxiib loo soo soconaysa xaga waa ka soo baxaysaa waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay followers and public content who can follow me marka ya isoo follow gareyn kara who can follow me ya isoo follow gareyn kara hadad meeshan friends of friends ay ka dhigatid waxa way saaxiibadaada ba ku soo follow gareyn kara sidaan lama rabo meeshan ya isoo follow gareyn kara waxa lagaaga baahan yahay inay ku noqoto public ay ku ahaato because qof walba oo Facebookaaga arko ama muuqaalkaaga hadaawado oo meel kale ka soo arko ama hal uu soo mention gareeyo oo qaab kale ku arko waxa way uu kugu darsan kara hadii public ku tahay waxa kale oo sameeyay saaxiib who can see your followers in your timeline tan aniga only me ba ita laakiin adiga public waa ka dhigan kartaa because anu waxaan meesha ugu dhigtay timeline kaaga ya arki kara hadaan meeshan public ka dhigo wax kasta oo ku jira profile kaaga dhaxdiisa ama waxyaabo lagu soo taageeray cid kasta arkaysa anna taama rabi laakiin marka hore saad followers far badan aad u hesho maadaama timeline kaaga marka la akhrisanayo ama saaxiibada tag la siiyay ay adiga ku soo follow gareyn karaan meeshan waxa ka dhiganaysaa public sidoo kale who can see the people based and list you follow meeshan waxa waaye beejada iyo macnaha dadka aad adiga follow gareysay ya arki kara lagu dhahay saadaraad tan waa privacy on media kuda laakiin dadka qaar waxay sameeyaan meeshas public bay ka dhigaan si macnaha dadka page-kaas markay kugu arkaan ay xagga raacay adigana ay ku soo raacaan marka waa fursad laba dhinac ah laakiin aniga on me baan ku deystaa meeshan saaxiibayaal who can comment your public post meeshan haday on me ku tahay ama friends of friends ku tahay qasaaro weyn ayaad ku jirtaa post baad soo dhigtay postigaaga ya comment gareyn kara lagu weydiiyay maxaa dhahday marka saaxiibadii bisa comment gareyn kara hadii saaxiibada comment gareeyaan kuwii saaxiibada la ahaa ma ku follow gareyn karaan kuwa aan saaxiibo la ahayn laakiin banaanka kale ka jooga ee Facebook isticmaalayna kuma follow gareyn karaan
marka xaggaas waa inaa public ka dhigataa. meeshan waxaa lagu weydiiyey public post notification. Public post waxaa waaye when people who are not your friends start following you, share, like, comment on your public post. waxaa waaye dadka aan saaxiibadaada ahayn markii micnaha postigooda iyo waxyaabaha adiga aad soo dhigtay ay arkayaan. saa daraadeed meeshan ayadana waxaad ka dhigtaa public. haddii aad meeshan friends ka dhigtid qasaare ayaad qabtaa oo saaxiibadood ama si guud dadka Facebook isticmaalo kuma arkayaan. saa daraadeed public ka dhig. Public profile info, manage who can like or comment or on profile information. That's always public including your profile picture. macnaha xoga aan in la qariyo ahayn baa jira. profile picture kaaga kamid ah, muuqaaladaada kamid ah, cover photo waa kamid ah, future photos iyo update wax la kamid ah. saa daraadeed kuwaas inaa qarisa maahan, maxaa yeelay dadka markay profile kaaga soo galaan waa inay arkaan waxa waaye waxa meesha kuu saaran, waxa aad qabatid, waxa aad ka shaqeyso. saa daraadeed haddii profile uu ku xiran yahay cidna kuma soo follow gareyn karta. saa daraadeed meeshan waa inaa public ka dhigtaa. show most relevant first comment. meeshan labadan inaad ayagana tick waa u baahan tahay. meeshan playlist filterkan off ha ku ahaato, maxaa yeelay waa wixii adiga maaragtay brikaman qof hadaad blog gareyso si micnaha ay dad kale ay u filter gareynin. waa saa daraadeed off ayaa la iska dhahaa. marka Facebooka markasta waa isticmaalayso saaxiibyaalow, marar badan waa idin sheegay waxyaaba ay qasab tahay in la furto ama aad iska furto oo sitina ah ayaa qasab ah. saa daraadeed meeshan way ku qoran tahay professional mode. haddii professional mode kan ay imaado muxuu ku leeyahay meeshanayta review your page manaamin ku leeyahay. marka iska fiiri meeshan review your profile health markuu dhaha page kaaga inuu caafimaad qabo iska fiiri. saa u jeedid when we take action on your profile your content of going against our standard you will see them here. ani hadda page kayga waxaa waaye waa iska caafimaad qabaa, wax macnaha oo dhibaato ah oo hadda qusay male. saa daraadeed adigana waxaad ka baari kartaa meelahaasayta. haddii meeshaanayta monetizationka inuu Facebookkaaga uu lacag inuu sameeyo u qalmi in kala waaye iyadana meesha waa ka baari kartaa. dadka qaar waxay sameeyaan Facebook waxay u bedeshaan professional mode si uu flow u helo. marka Facebook inta aadan professional mode ka u bedelin waa inaad horta settingka iska saxdaa kadibna uu professional mode ku noqdaa oo aad u bedelataa. haddii laakiin settingkan uu ka xiran yahay Facebookkaagana uu professional mode yahay in macnaha wax faa'iido oo difference uma dhaxeeyo. markuu qof Facebookkaaga soo galo hadda dan profile-kii galo qof markuu Facebookkaaga soo galo haddii aan ku dhufto tusaale view as sidee ii aragtaa markaan ku dhufto qaabkaas ayuu qofka aniga hadda ii arkaa. qaabkan mar walba iguma soo darsan karo oo add friend ma dhihi karo. dadka qaar baa xarifiin ah laakiin waxay sameeyaan qaabab waxaa jira qofka loogu darsan karo laakiin inta badan ma fahansana. qof waxaa jira Facebookiisa uu flow yahay laakiin haddana aad codsan karto. marka haddii aad u baahan tahay qaabkaasna qofka macnaha flow macnaha aysan ahayn laakiin inaad saaxiibo noqotaan aad rabtid oo inaad flow gareysan ka dhacayso muuqaal ayaan kasoo sameynaya commentiga igu soo qora. marka ilaa dhamaadka haddana la soo gaartay sida caadiga fadlan muuqaalkan oo like garey channelkana kusoo bir oo taageer. waxaan wadnaa maalmahan challenge ayaan galay oo ah maalin kasta 30 cisho inaan muuqaal soo dhigo si macnaha muuqaaladaas aadan macnaha adigana aadan u weynin. channelka la booqo oo la soco oo muuqaalada comment garey. aad iyo u mahadsantahay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.